أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك أداوانيسان والكرم أوفيشيال فضلا هذا نقع سبتا سبسكرايب هذا هورين ولا joogtayna لايك iyo share inta waxay ina tahay dhiirigelin. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa haddii eeba karaale noqdo qodobo ku saabsan dareenka jacaylka dhabta ah. runtii jacaylka waxaa dareemi kara macaankiisa iyo qaraarkiisaba ruuxa soo arko oo kaliya. way adag tahay in uu fahmo ama uu dareemo ruux uu ku cusub yahay jacaylka. farxadda waa astaan uu iska leeyahay jacaylka dhabta ah. waxaad ahaanaysaa ruux farxad ku nool markasta oo aad ka ag dhawaatay misana ruuxa aad jeceshahay aad u dhawaato. dabeecadda diiran waa astaan uu iska leeyahay jacaylka dhabta ah. waxaa dhacaysa adigoo isleh si degan u hadal haddana uu kaa tambato jacaylka oo aad adeegsato ereyo kolkolol. aragtida aad ka qabto ruuxa aad isjeceshihiin oo ku ah mid la yaab leh. ruuxa aad isjeceshihiin wuxuu kula noqonayaa in aad dadka kale waxba u dheeryahay, taasi oo ah sabab u dhigaysa wax aad ku jeclaatay. waa dareen uu iska leeyahay jacaylka dhabta ah. murugada waa astaan uu iska leeyahay jacaylka dhabta ah. waqti kasta oo aad isku dhacdaan ama aad isqabataan ruuxa aad isjeceshihiin waxaad dareemaysaa murugo, xitaa haddii aad tahay ruuxa qaladka galay. waxaad ogaataa misana aad og tahay oo aad akhrinayso waa astaan uu iska leeyahay jacaylka dhabta ah. waxaa dhacda badanaa waxaad rabto amaba aad dareensan tahay in aad isku indhitirto, taasi waxaa kalifaysa jacaylka. qodobadan iyo kuwo kale oo badanba waa astaan dareenka ku salaysan jacaylka dhabta ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح.